isbedel sida aad u socoto qurba joog Soomaaliyeed ayaa muddooyinkii dambe waxa idinku imaanaya magaalada Muqdisho isbedelkani ma kula tahay in ay keentay dadaalka weyn aad samayseen in ay dhalinyarada qurba jooga iyagana ay ku soo dhiiradaan in ay Muqdisho yimaadaan shaki ma ku jiro waxa waaye wadanka waa Soomaaliya Soomaalidana in badan ayaa qurbaha ka aaday laga bilaabo sanadkii 1989 wixii ka dambeeyay Soomaalida way bixisay dhalinyarada ku dhalatay qurbaha ayaa maanta da'doodu qaar 30 ka yahay qaar 25 ana markuu waxaan raadinay oo ka fakirnay dhalinyaro badan oo Soomaaliya oo talent ah ayaa naadiyadii Europe ama America ama Australia ayaan ogaanay inay ka mid yihiin kala duwan cid ka faa'iideysanaysan ay jiraan marka waxaan xoog saarnay si uga faa'iideysatiin dhalinyarada Soomaaliyeed ee dibadda ku nool waxaa soo baxday marka inay muhiim tahay in casuumaad loo fidiyo dalka ay yimaadaan kii u wanaagsanna meeshaas laga arko iyadoo ujeedadu ay tahay in ciyaartooyda qaranka matasho la helo ujeedada kalena ay tahay dhalinyarada dibadda ku nool inay dalka bartaan dalka inay aaminaan inay dalnayn inay ogaadaan kuwa dalka joogan inay ogaadaan dhalinyarada Soomaaliyeed dibadda ku nool inay imaan karto oo ciyaartooy ujeedooyinkaas oo dhan ayaa meesha ku jiray waxaana barnaamijkaas aad ugu wada shaqaynaynay shirkadda Somaliweek cagta iyo wasaaradda isboortiga ee aad ugu wada shaqaynay gaar ahaan wasiiradeena Khadiijo Xamadiiri waxaana hadda kulankii Ingiriiska oo kale marka la fiiriyo aan ka helnay hal ciyaartooy oo Ingiriiska ka imaanaysay ciyaartooygii hadda goolka aan uga badanay Ethiopia bari ayuu ahaa haddana waxaa jooga kadib waxay yimid Australia ayuu helaa laba ciyaartooy soo ay macallimiintu way ka qoreen hadda waxaa jooga Sweden oo maanta ciyaartay maalintii ciyaartay ujeedada marka waxay soo imaanaysaa in ciyaartooyda tayada leh dibadda ku nool sidii qarankooda ugu ciyaari lahayn ayaan fursad u leeyahay la abuuro taas ayaa keentay in la joogto in wadanka waxa kala duwan ee deelaad mustaqbalkana hadda loo sayrato marka la gaaro hadda kali ayuu imaanaya laakiin waxaan qorshaha loogu jirtaa anaka iyo wasaaradda waxa qorshaha loogu jirtaa in Somaliweek lagu qabanayo dibadda inaan u soo wareejino in dalka lagu qabto oo ilaa 6 kooxood ama 8 kooxood oo Soomaaliyeed qulub joogta ah ee dalka inta yimaadaan tartankii Somaliweek dalka lagu qabto maadaama dibadda lagu qaban jiray ku fakarayno in isku xiro dhalinyarada gudaha joogta iyo kuwa dibadda jooga isku xiray si markaas aan u helno ciyaartooy Soomaaliyeed gudaha iyo dibadda laga soo xulay qarankeena matali karta waxaana xaqiiqada markaas in quality-geeni oo kala yaqaan korku cidoono kulubadana gaari doona markaas uu wada tagno oo maskaxdeena iyo awooddeena isugu geeno